dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa u ogolaatay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir lacag gaaraysa 6 milyan oo dollar oo ahaa deeq lacageed oo ka timid midowga Yurub. sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya waxaa lagu cadeeyay in ujeedka lacagtan uu ahaa qoondada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee lacagaha deeqaha dibadda ka timaada iyadoo maamul walbaaba loo dirayo min 1 milyan oo dollar oo ah kamida miisaaniyadooda si simanna loo qaybinayo. qoraalka uu ku saxiixnaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa loogu mahad celiyay waa miro dhalkii shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ee u dhaxeeyay wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer goboleed iyo gobolka Banaadir kaas oo lagu lafaguray arrimo kala duwan oo ku aadan wada shaqaynta hay-adaha maaliyadeed ee dalka. maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa loo qoondeeyay 40% deeqda miisaaniyad kabida ee laga helay midowga Yurub oo ah lacag gaaraysa 15 milyan oo dollar taas oo guud ahaan noqonaysa lacag gaaraysa 6 milyan oo dollar oo la siinayo min 1 milyan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa laga dalbaday in ay lacagtan 1 milyan loo isticmaalo 3 dalool laba kamida kharashaadka dhinaca amniga iyo arrimaha bulshada halka midda kalena ay maamul walbaaba uu ku qarash gareeyo hadba sidii uu doono. sidoo kale waxaa lagu wargeliyay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir in si degdeg ah ay ku soo diraan warqad codsi ah oo lagu cadeynayo in lacagtan loo isticmaalo sida ku cad warqadan iyo ballanqaad ku aadan in ay xisaab celin buuxda laga soo celinayo muddo 45 cisho ah kadib marka la isticmaalo lacagtan.